ku soo dhowaada sheekadii la magac baxday sheekadii Bashiir iyo shimbirtii wanaagu. waxaa idin akhrinaya anigu Cabdulqaadir Sheekh, waa arday akademi. sheekadan magaceedu waxaa la yidhaahdaa sheekadii Bashiir iyo shimbirtii wanaagu. baa waxaa jiri jiray wiil yar oo la odhan jiray Bashiir. Bashiir wuxuu ku noolaa tuulo yar oo geedo qurux badan ay ku yaallaan. maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo fadhiya geed weyn hoostiisa ayuu Bashiir arkay shimbir yar oo midabo qurux badan leh, isla markaasna ku dul heesaysa laanta sare ee geedka. shimbirtu waxay ku heesaysay, maanta waa maalin wanaagsan, waa maalin qurux badan, waa maalin iftiin leh, waa maalin wacan, waan duuli karaa, waan buubi karaa, keligayga waxaan ahay xur. waxay ahayd waxyaabihii ay shimbirtu ku heesaysay oo ay maaragtay dul hebaabaysay geedaha dhexdooda. kadib shimbirtii ayaa u timid Bashiir, waxayna u keentay miro dhadhan macaan leh. Bashiir aad buu u farxay, wuxuuna bilaabay inuu shimbirta u mahadceliyo lana saaxiibo. maxaa dhacay markaas? maalin kasta shimbirtu waxay u keeni jirtay Bashiir miro kala duwan, oo mirahaas waxaa ka mid ahaa tufaaxa ama cambaha, liin macaan, muus ama moos, canab ama cinab, iyo miro yaryar oo duurka ka baxa. markaa kadib waxay noqdeen saaxiibo dhan ah oo aan kala maarmin. Bashiir wuxuu shimbirta u bixiyey magaca ah wanaagu, waayo shimbirtu aad bay u caawisay oo wuxuu arkay wanaaggeeda, markaa wuxuu u bixiyey wanaagu. sababtoo ah waxay ahayd shimbir naxariis badan oo mar waliba ka farxisa Bashiir. markaa shimbirtii runtii maalin walba waxay u keeni jirtay miro oo way ka farxin jirtay, oo isaguna aad ayuu ugu farxi jiray arrimahaas. haddaba maxaa dhacaya? waxaa dhacaya maalin murugo leh. oo murugadu maxay tahay? maalin murugo leh waxay tahay maalin maalmaha ka mid ah, wanaagu uma iman Bashiir, oo Bashiir wuu sugay, laakiin shimbirtii ma aysan iman, oo shimbirtii waxay noqotay mid la waayo. maalintaa ma aysan iman, marka Bashiir aad buu u murugooday. intaa kadib Bashiir wuxuu bilaabay inuu ka walwalo. Bashiir wuxuu bilaabay inuu ka walwalo, ama sababtoo ah waxa uu waayay shimbirtii wanaagu. wuxuu isweydiiyey, wanaagu ma dhaawacantay? wanaagu ma dhuntay? ma la dilay? ayuu isweydiiyey Bashiir. su'aalo badan ayuu isweydiiyey Bashiir runtii. wuxuu yidhi, wanaagu ma la dilay? ma la dhacay? ma dhuntay? maxaa ku dhacay wanaagu? Bashiir aad buu u walwalay runtii, walwal wuxuun baa qabtay. Bashiir wuxuu go'aansaday ama go'aan ku gaaray inuu baxo oo uu duurka u raadiyo shimbirtii wanaagu. wuxuu dhex maray geedo dhaadheer, buuro yaryar, iyo dooxooyin kala duwan ayuu dhex maray, isaga oo markaa soconaya oo duurka dhex maraya oo raadinaya. waa kaas shimbirtii buu raadinayaa. Bashiir aad buu u murugaysan yahay, meesha buu dhex marayaa.
wuxuu dhegaystay codadka shimbiraha kala duwan. shimbir buu maqlaa marba shimbir buu maqlaa marba shimbir buu maqlaa codadkii buu dhegaysanayay laakiin wanaagu ma aysan ahayn shimbirahaas oo dhan. duurkii ayuu dhex socdaa si uu maaragtay shimbirihii u helo shimbirtii u helo. codadkii buu dhegaystay laakiin nasiib darro waa uu waayey shimbirtii wanaagu. farxaddii baa bilaabatay oo la kulankii si lama filaana ayay Bashiir iyo isu arkeen iyo shimbirtii. Bashiir oo fadhiya geed korkiisa oo aad u daalan una niyad jabsan ayuu maqlay cod yar oo u garanayay titi. wuu eegay kor buu eegay wuxuu arkay wanaago oo laanta sare oo geedka saaran geedka korkiisa laan sare saaran buu arkay. wanaago duulaysa buu arkay. aad buu u farxay aad buu u farxay Bashiir runtii. farxad weyn ayuu farxay Bashiir markuu maqlay shimbirtii soo socota. kadib maxaa dhacay? wanaago waxaa ka muuqday laakiin dhaawac yar oo dhinaca baalka midig ayaa dhaawac ka muuqday oo wuxuu arkay shimbirtii oo dhaawacsan oo meel ka dhaawacan buu arkay Bashiir. Bashiir si tartiib ah ayay ugu soo degay geedkii wuxuuna wanaago u qaaday guriga. wuxuu u sameeyey meel yar oo raaxa leh buu u sameeyey. wuxuu siiyey biyo miro wuuna daryeelay oo wuu caawiyey ilaa ay ka bogsato. Bashiir shimbirtii buu daaweeyey waxay u baahan tahay buu siiyey oo axsaan buu u subay sidii ayadu u daryeeshay buu u daryeelay. waa kaa Bashiir oo shimbirtii la taagan. kadib sheekadii inta ayay ku soo gabagabowday oo Bashiir wuxuu noqday nin farxad badan oo aad shimbirta ula cayaara oo mar walbaba maaragtay la taagan ayuu arkay. Bashiir muxuu bartay? Bashiir wuxuu bartay in saaxiibtinimadu dhabta ah ay u baahan tahay daryeel ama in la iscaawiyo oo saaxiibka adigu aad caawiso mar walba. isla markaasna inaad ka warqabtid saaxiibka oo marka uu dhumo ama marka uu xanuunsado inaad garab istaagtid oo aad caawisid ayuu bartay Bashiir. Bashiir aad buu u farxay runtii oo wuxuu ogaaday in la iscaawiyo inay aad u wanaagsan tahay oo maaragtay shimbirtii aad ayuu dib dambe ayay isu saaxiibeen oo waxay noqdeen laba saaxiibo ah oo wada nool. haddaba maxaan ka baran karnaa sheekadan? fariintaan ka baran karnaa maxay tahay? waxaan ka baran karnaa dhambaalka ama sheekadun maxayna baraysaa? waxay ka mid tahay waxyaabaha aan ka baran karno runtii in saaxiibtinimada la ilaaliyo. mar kastaba saaxiibtinimada waa in la ilaaliyo inay aad u fiican tahay. in dulqaad la lahaado oo maaragtay dulqaadkuna uu keeno guul. wuxuu kala ogaa daryeelka iyo naxariistu waa furaha kala gacaylka iyo saaxiibtinimada joogtada ah. waxaa loo baahan yahay qofka saaxiibka ama qofka aad maaragtay isku dhowdihiin ama walaalo aad tihiin inaad mar walba iska warqabtaan oo iscaawisaan. iscaawinaadu waa tan guusha lagu gaaro. sheekadii Bashiir iyo shimbirtii wanaago halka ayay ku dhammaatay oo intaan dib dambe u kulmi doono waa macalin Cabdulqaadir oo idin leh nabad geli.